kulankan iyo ujeedkiisu ha wacyigelinta shaqaalaha dawladda qaybna ka barnaamijka cafi walaalka oo wada Sheekh Maxamed Ibraahim Kinyaawi ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana goobjoog ka ah wasiirada dekedaha iyo gaadiidka badda duulista hawada agaasimayaasha guud ee wasaaradahaasi shaqaalaha iyo maamulka waxaana Sheekh Maxamed Ibraahim Kinyaawi halkaas ka jeediyay muxaadaro aad u qiimo badan taasi oo ka hadlaysa ahamiyadda ay leedahay wax wada qabsiga bulshada iscafinta iyo ku dheganaanshaha diinta islaamka soo cafi walaalka waxay u gogol xaaraysaa in la is hor yimaado kii fogaa iyo kii dhowaa inay isu yimaadaan dadkii kala jeeday inay isu soo jeestaan war dad kala jeeda ma waxbay xallin karaan waa in la is hor fariistaa see la isu hor fariisan waa in madluumiintii la dhacay la fogeeyey ee la dulmay waa inay marka hore wax cafiyaan ilaa ninka daalimka waa ogol yahay isaga waa daalim waxbuu qabaay inuu ku hor fariisto mar walba waa ogol yahay cafisku wuu ogol yahay laakiin qofka dhiban ee diidan inuu cafiyo waa madluumka garuun uu leeyahay laakiin ilaahi arrinteena yaqaana dhahaya war horta idinka cafiya ilaahayna barya kadibna washaawirhum fil amr markaad wax isku afgarataan see xoolihiin isugu celinayaan see dhulalkii wixii sharciya maxaakimtu markii dambe arrinkii qabanaya oo gobolkii qabanaya madaxdu baa wasaarad walba iyada hawlaheedii qabsanaysa maxaa lagu qabanaya qalbi ayaa wax lagu qabanaya iyo cafis markaa kadib oo aad wax isu meel wada dhigataan maxaa yiri fa idaa azamta fatawakkal ala allah ilaahi tala saarna wasiiradii ka qayb galay kulanka ayaa uga mahad celiyay Sheekh Maxamed Ibraahim Kinyaawi fariimaha diiniga uu la wadaagayo bulshada Soomaaliyeed iyagoo ku booriyay bulshada iyo shaqaalaha dawladda inay ka faa'iideystaan sheekana waxa leenahay ilaahay ku barakeeyo ilaahay carabkaaga iyo caqligaaga iyo cilmigaaga iyo ehelkaaga Allah barakeeyo adigoo kalena ilaahay ummadda ku badiyo oo dadkan wanaaga fara oo maanta ka reebo xayeelay culimadu waxay joogaan meeshii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam waa ducaad fariintii waxay wadaan Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam oo dadka gaarsiin jira ay gaarsiinayaan marka fariintii uu nooga siiday Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam inuu soo gaarsiiyana aad baan nooga mahadnaqaynaa asagana waajibaadkiisa diiniga ah gutay markaan ka soo baxnay dagaaladii sokeeyay wadankan runtii wadan waqti badan qaatay adduunka sidaan ognahay waxa taariikhda galay dagaaladii ka dhacay dalka Rwanda iyo tusaalooyinkii ay sameeyeen ama talaabooyinkii ay qaadeen oo runtii ummadda ay inta badan marka Afrika laga hadlayo in ay Rwanda noqotay tusaalaha ugu wanaagsan ee dagaalada markii ay galeen iyo sida ay uga baxeen Soomaaliya maanta waxay taagan tahay heer lamida oo ah in dagaaladii muddada dheer qaatay maanta inay uga fariisteen ama ay Ilaahay u bixiyay in ay culimadii u istaagaan in ummadii isku soo noqdaan meelaha ugu muhiimsan oo taabtay Sheekh Maxamed Ibraahim Kinyaawi ayaa kamid ah dhibaatooyinkii kala duwan ee dalka uu soo maray wuxuuna sheegay in loo baahan yahay si dhab loogu adeego bulshada iyo dalka intuba isla mar ahaantana la muujiyo isku duubni taasi oo ku tilmaamay inay keeni karayso xasilooniyo degnaansho ay helaan shacabka Soomaaliyeed oo ku dhex gaamuray dhibaatooyinka sanada jirsaday Cali Cabdulqaadir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho